وأولاد دولة وسمجالات بورما دب وجودس سودوين كبرسنا دقمة بورما مدين كودن بيبا أي مريستو ده يكون بقبن جديد كي يدت كمرة مرنا ذا نبرسن بربلا وقد اسمها ودوين دورة يوبلا وهاجد كانوا عامد كل مية ودوين دورة ساكا ينا دولة وسمجالات بورما سرف مية شقة لقوي الجلني الطريقة نوا جد كلامي جهور مرة دولة وسمجالات بورما سمر كان أحمر المهم أو كل مية ودوين دورة سمر كان يشوف الدوشان جديد كلا جوانا وكلا طلاب ودوين دورة بربلا وقد يعترك ودوين كدقمة بورما وحكور بحي انجنير محمد علي شيخ فارح وانجنير كدولة وسمجالات بورما وحنوكا حقور رميا بربلا وقد يعترك ودوين كدقمة بورما maanta bishu tahay 13 bisha 2020 waxaan bilownay dayactirkii wadooyinka magaalada degmada Boorama tani waxa weeyaan qayb kamid ah dayactirka wadooyinka magaalada Boorama waa halkii isku xiriirsay wadada dhakhtarka Tacamuud iyo Airport ka baxda junction kaas oo in muddo maxadanay go'go'naa waxaan ku guuleysanay inaan dayactirno waxa ku xigi doonto bilaabi doonaa insha Allah wadada kulmiye suuqa dhaxmartay go'go'an ee roga sheedeer tawreega saasay u soconayaan dayactirku marka maxaadana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan bishan gudahooda hadii la yiraahdo ku soo dhameystirno ilaa 3 wado oo degmada waxa ay inoo suurtageliyay inoo suurtooday maalmahan inaan dayactir ku sameeyno wadooyinka magaalada ugu waaweyn oo ugu horeyso wadada maanta aan taaganahay oo soo injineer ku sheegay wadadaas ku xidha 3 wado waaweyn wadada airportka iyo taashan maanta Tacamuud iyo tan magaalada laga soo galay dhigta ee dhakhtarka soo hormarta labada midkiisa ayaa wadan tago marta oo iyaduna mudaan la dayactirin oo xogaada dalool iyo girgiriir leh oo ugu tala galay inaan sheegay raasaadno si ay u sinaato ismu soo noqoto saddexaad baa wadada sheedeer oo mudaba dadka ka soo cabanayeen oo godad badan leeyadna insha Allah wadada saddexaad ugu dambeysana ta ugu hawl badan oo aday tahay erishka iyo aday tahay boot hoolisba dhexdana way ka go'day dhinacyadana way ka go'day insha Allah dhinacyada ka herbisman ka xirayna dhexdana waxaan ku buuxinaa daamir xildhibaan xasan axmed caynaan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama isla markaana goobjoog ka ahaa diburiska dariiqan ayaa waxa uu dhankiisa u faahfaahin dheer iyo ka bixinaya diburiska xilligan ay ku dhisayeen wadooyinka burbursan ee magaalada Boorama gudoomiyaha golaha deegaanka Salebaan Xasan Cadi uu ka fulinayo degmada Boorama oo ah dayactirka 3 wado oo magaalada Boorama halbowlaheeda ah 3 wado oo gudoomiyaha iyagu maanta uu bilaabay waxaanu leenahay 3 wadaba waxay ahaayeen 3 wado oo muhiim ah hadii aan ahay xildhibaankii golaha deegaanka waxaan u hambalyeeynaa cabashada dadweynaha uu ka jawaabay gudoomiyaha iyaga degmadu cabashadaas oo ah in la dayactiro wadooyinkii ugu muhiimsanaa oo ah 3 wado oo magaalada aad ugu muhiim ah oo gabagooda way isku wada xidhaan waxaan jeclahay inaanu dhameystiri doono 3 wado wadooyin kalena aanu ku xijin doono iyadoo wada dayactira dariiqan ayaa ka mid ahaan doona dariiqyada ugu muhiimsan isla markaana gaadiidka kala duwan ay ugu isticmaalka badan yihiin waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama.